bismillaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada muuqaal cusub. Dhimashada madow waxa uu ahaa cudur safmar oo xagga kale u rogay adduunka, kaas oo haleelay Yurub iyo Aasiya bartamihii qarniga 14aad ee miilaadiga. Dhimashada madow waxa uu Yurub soo gaadhay sanadkii 1347 markii 12 markab oo ka yimid badda madow ay ku soo xidheen dekedda Messina ee jasiiradda Sicily. Dadkii ku soo ururay maraakiibta si ay u soo dhaweeyaan ayaa kala kulmay wax aysan filanaynin oo argagax leh. badi badmareenadii la socday maraakiibtu way dhinteen, intii kale waxay ahaayeen kuwa xabaal qarka u saaran oo ay dhammaan jidhkooda hadheeyeen finan madow oo wata dhiig iyo malax. madaxdii Sicily waxay amar degdeg ah ku bixiyeen in xadhigga laga furo maraakiibta oo badda lagu sii daayo, laakiin waxay ahayd amar lala soo daahay. 5 sannadood ee xigtay waxa uu ku galaaftay qaaradda Yurub in ka badan 20 milyan oo qof, taasoo u dhiganta 3 meelood oo meel bulshadii qaaraddaas ku dhaqnayd, halka uu caalamka oo dhanna galaaftay wax ku dhow 200 oo milyan oo qof. kusoo dhawow barteena kobciye haddaad ku cusub tahay kanaalkan, fadlan subscribe saar kambalelka digniintana daar si ay ku soo gaadhaan muuqaaladeeda ugu dambeeya. ka hor inta aysan maraakiibtii dhimashadu ku soo xidhan dekedda Messina, in badan oo reer Yurub ah ayaa maqlay xanta ku saabsan cudur halis ah kaasoo dhibaato badan ku hayay wadooyinka ganacsiga ee bariga dhow iyo ka fog. xaqiiqatan bilowgii 1340-yadii cudurku waxa uu ku dhuftay wadamada Shiinaha, Hindiya, Bershiya, Suuriya iyo Masar. cudurkan waxaa loo maleynayaa inuu asalkii ka soo bilowday qaaradda Aasiya 2000 oo sano ka hor, waxayna u badan tahay inay faafiyeen maraakiibta ganacsigu, iyadoo oo dhanka kalena cilmi baadhis dhawaan la sameeyay lagu sheegay in maaragtiga sababaya cudurkan laga yaabo inuu Yurub ka jiray ilaa 3000 oo sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise. dadyaga reer Yurub uguma diyaar garoobin sidii laga rabay cudurkan halista ah, sida uu sheegay gabyaagii reer Talyaani Giovanni Boccaccio. wuxuu xusay rag iyo dumarka si isku mid ah ayuu ugu dhacay bilowga cudurkan. bararka kooban mid uun gumaarka ama kilkilada ayaa weynaanaya ilaa uu leekaanayo xajmiga xabad tufaaxa, qaar kalena waxay leekaanayeen xajmiga ukunta, iyo weliba kuwo kale oo ka yar xajmigaas, kuwaas oo markii dambe loo bixiyay magaca Plague Boils. dhiig iyo malax ayaa ka soo dareeraya bararkan qanjidhada ee qariibka ah. waxa kale oo astaamahan la maaninayay kuwo kale oo yana aan wanaagsanayn, sida qandho aad u daran, qarqariyo, hunqaaco, shuban, kaar daran. ugu dambeyntiina haddaynu si gaaban u nidhaahno dhimasho degdeg ah. cudurkan waxa uu si gaara u weerarayaa qanjidhada jidhka, isagoona sababayay inay qanjidhadu barraan. haddii si dhaqso leh aan loo daaweyna, caabuq waxa uu gaadhi karaa dhiigga ama sababada. dhimashada madow waxa uu ahaa cudur argagax leh oo ka mid ah kuwa safmareenka ah, kaas oo aan cidna u aabayeelaynin, taasoo macnaheedu yahay inuu ku dhacayay cid kasta. Boccaccio waxa uu qoray, taabashada yar ee la taabto dharka qof sida cudurkan ayaa u muuqatay inay ku filan tahay inay cudurka u gudbiso qofka taabtay. cudurku sidoo kale waxa uu ahaa mid saameyntiisu argagax lahayd. qofka ugu caafimaadka fiican ayaa laga yaabaa inuu habeenkii seexdo isagoo caafimaad qaba, balse subaxii la arko isagoo meyd ah. maanta saynisyahanadu waxay fahamsan yihiin in cudurkan oo hadda loo yaqaano magaca Plague ay sababaysay bakteeriyada la yidhaahdo Yersinia pestis, taasoo uu daha ka qaaday biologist-ii reer Faransiis Alexander Yersin dhammaadkii qarnigii 19aad. waxay og yihiin in bakteeriyadani ay qofba qof uga gudubtay iyadoo ku gudbaysa hawada ama sidoo kale qaniinyada tagfida ama jiirka sida cudurka. labadan cudur sida ayaa labaduba laga heli karayay ku dhawaad meel kasta oo ka tirsan Yurub casriyada dhexe, balse waxaa si gaar ah u keenayay maraakiibta noocyadeeda kala duwan, taasoo sababtay in cudurkani soo gaaro dekedaha Yurub midba midda ku xigta. waxyar kadib haleelidii Messina, cudurku waxa uu ku sii faafay dekedda Marsilia ee waddanka Faransiiska iyo dekedda Tunis ee qaaradda Afrika. kadib waxa uu gaadhay Roma iyo Florence, labada magaalo oo xudun u ah iskuna xidha ganacsiga. bartamaydii sanadkii 1348 cudurku waxa uu sidoo kale haleelay magaalooyinka Paris, Bordeaux, Lyon iyo London. maanta dhacdooyinka xiriirsan ee khatarta ah waa wax argagax leh laakiin la fahmi karo, balse bartamaydii qarniga 14aad si kasta ay ahaataba waxay u ekayd inaysan jirin qeex cad oo loo hayay. ma jirin qof garanayay sida qofba qofka kale ugu gudbinayo, mana jirin qof garanayay sida la isaga ilaalinayo ama loo daweynayo. dadkii caafimaadka qabay argagax daraadii waxay u sameynayeen wax kasta oo awoodooda ah si ay isaga ilaaliyaan cudurka. dhakhtarradii waxay diideen inay arkaan bukaankii, baadaryadii waxay diideen inay booqdaan dadkii sii dhimanayay, xataa dukaanlayaashii waxay xidheen dukaamadii. dad badan ayaa xagga baadiyaha u qaxay, laakiin xataa markay halkaa tageen kama aysan baxsan cudurka. wuxuu saameeyey lo'dii, arigii, doofaaradii, digaagadihii iyo weliba dadkii ay meesha ugu tageen. galaygu marna si dhaba uma dhammaan, wuxuuna soo noqday dhowr sano kadib, balse mas-uuliyiintii dekedda Ragusa ee hoos imanaysay maamulka Venice ayaa awooday inay hoos u dhigaan faafitaankiisa kadib markii ay badmaaxayaashii ku soo xidhanayay badda meel gaara geeyeen ilaa ay ka cadaanaysay inaysan sudin cudurka. badmaaxayaasha waxaa meel gaara lagu hayn jiray 30 cisho oo loo yaqaanay Tarantino, muddadaas oo markii dambe loo kordhiyay 40 casho oo yana loo yaqaanay quarantine.
oo ah meesha ereyga casriga ah ee quarantine uu ka yimid. safmareenku wuxuu xooggiisii dhammaaday bilowgiisa 1350-aadkii, hase yeeshee wuxuu marba dib u soo laabanayay dhowr jiil oo kasta. mar nadaafadda iyo caafimaadka dadweynaha oo la horumariyey ayaa aad hoos ugu dhigay saamaynta cudurka, balse ma ay cidhib tirin. inkastoo antibiyootikiskuna ay yihiin kuwa daaweyn kara cudurkan, haddana sida ay ku warramayso hay-adda caafimaadka dunida ee WHO, waxaa sanad kasta cudurka laga helaa 1,000 ilaa 3,000 oo qof. intaas ayaynu kusoo afmeernaa daawadayaal muuqaalkan aan kaga hadlaynay safmareenkii ugu halsaysnaa abid. fadlan hadduu muuqaalku cajibiye like sii, asxaabtaadana kula wadaag baraha bulshada ee kala duwan. hana hilmaam inaad subscribe saartid channelka adoo daaraya gambaleelka digniinta. fi amaanillah.